injiilka sida Luukas u qoray cutubka 18 si Ciise u tuso inay waajib ku tahay iyaga inay mar walba tukadaan oo aanay ka qalbi jabin wuxuu iyaga kula hadlay masaal isagoo leh waxaa magaalo joogay xaakin aan Ilaah ka baqi jirin ninna aan danayn jirin waxaana magaaladaas joogtay carmal ninkeedii ka dhintay marar badanna way u timid iyadoo kule cadowgayga iga xaqsi intii waqtiga ayuu yeeli waayay laakiin dabadeed wuxuu isku yidhi inkastoo aanan Ilaah ka baqin oo aanan ninna danayn weliba dhibta ay carmalkan idhibayso aawadeed waan xaqsiin doonaa si aanay marar badan iigu soo noqnoqon oo ii daalin markaasaa rabbigu ku yidhi maqla wixii xaakinka xaqa darnaa yidhi ilaahna miyaanu xaq siin doonin kuwuu doortay oo habeen iyo maalinba u qaylinaya oo miyaanu u dulqaadan doonin waxaan idinku leeyahay dhaqsaba wuu u xaq siin doonaa hase ahaatee goortuu wiilka aadanuhu yimaado markaas rumaysad ma ka heli doonaa dhulka masaalkan ayuu kula hadlay qaar ismoodayey inay xaq yihiin oo kuwa kale quursanayey laba nin ayaa tegey inay macbudka ku tukadaan mid farisi buu ahaa kan kalena cashuur qaade farisigii intuu istaagay ayuu waxyaalahan isugu tukaday ilaahow waxaan kuugu mahadnaqayaa inaanan ahayn sida nimanka kale oo wax dulma iyo kuwa xaqa daran iyo dhillayaasha ama xataa sida cashuur qaadahan toddobaadkiiba 2 kol ayaan soomaa waxaan haysta oo dhanna 10 meelood ayaan meel ka bixiyaa laakiin cashuur qaadihii meel fog ayuu istaagay ma uusan doonayn inuu indhihiisa cirka u qaado laakiin laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh ilaahow ii naxariiso anigoo dembi leh waxaan idinku leeyahay kan iyo kii kale kan baa gurigiisa tegey isagoo la caddeeyey inuu xaq yahay waayo mid kasta oo isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo kii is hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa ilmo yaryar ayay u keeneen inuu taabto laakiin goortii xertii aragtay ayay canaanteen laakiin Ciise ayaa u yeedhay oo ku yidhi ilmaha yaryar daaya ha ii yimaadeene hana diidina waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada Ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan boqortooyada Ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale meeshaas ma uu geli doono taliye ayaa weydiiyey isagoo leh macallim wanaagsanow maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeeda dhaxlo markaasaa Ciise ku yidhi maxaad igu yeedhaysaa wanaagsanow mid wanaagsan ma jiro mid maahe kaasuna waa Ilaah qaynuunada waa taqaan waa inaanad sinaysan waa inaanad qudhgoyn waa inaanad waxadin waa inaanad marag beena furin aabbaha iyo hooyada maamuus markaasuu ku yidhi kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii waan dhowray Ciise goortuu waxaas maqlay ayuu ku yidhi weli wax keliya ayaa kuu dhiman waxaad haysatid oo dhan iibi oo masaakiinta u qaybi oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal oo kaalay oo isoo raac laakiin goortuu waxaas maqlay ayuu aad uga calool xumaaday waayo aad buu hodan u ahaa Ciise goortuu arkay wuxuu yidhi kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyada Ilaah galaan waayo nin hodan ah inuu boqortooyada Ilaah galo waxaa ka hawl yar in awr irbad duleelkeed ka duso markaasaa kuwa maqlay waxay ku yidhaahdeen haddaba yaa badbaadi kara wuxuuse ku yidhi waxa aan dadka u suurtoobin Ilaah waa u suurtoobaan Butros ayaa ku yidhi bal eeg waxayagii ayaanu ka tagnay waana ku raacnay wuxuuna ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay ma jiro nin boqortooyada Ilaah aawadeed uga tegay guri ama afo ama walaalo ama waalid ama carruur oo aan haatan helayn labalaab badan waqtiga imanaya nolosha weligeeda 12 ayuu watay oo ku yidhi waxaynu ku soconnaa Yeruusaalem oo wax walba oo nebiyadu qoreen ayaa wiilka aadanaha u noqon doona waayo isaga waxaa loo dhiibi doonaa dadka aan yuhuudda ahayn waana lagu kacami doonaa oo la caayi doonaa oo lagu tufi doonaa wayna karbaashi doonaan oo dili doonaan maalinta saddexaadna wuu soo sara kici doonaa laakiin waxyaalahaas waxba kama ay garan hadalkaas waa ka qarsoonaa mana ay garan wixii la yidhi waxaa noqotay markuu Yerixo ku soo dhawaaday in nin indhala uu jidka ag fadhiyey oo dawarsanayay oo goortuu maqlay dadka badan oo ag maraya ayuu weydiiyey
waxay ahaayeen waxay u sheegeen in ciisihii reer naasareed ag marayo markaasuu qayliyey isagoo leh ciise ina daa'uudow ii naxariiso kuwa hormarayey ayaa canaantay si uu u aamuso laakiin si ka badan ayuu u qayliyey ina daa'uudow ii naxariiso markaasaa ciise joogsaday wuxuu ku amray in loo keeno oo goortuu u soo dhowaaday ayuu weydiiyey oo ku yidhi maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo wuxuu ku yidhi sayidow inaan wax arko markaasaa ciise ku yidhi wax arag rumaysadkaaga ayaa ku bogsiyey kolkiiba ayuu wax arkay wuuna raacay oo ilaah ammaanay dadkii oo dhanna goortay ay arkeen ayay ilaah ammaaneen